waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo oo kooban kufsiga waxaad moodaa maalmahan dambe inuu aad ugu soo noqnoqonayo social mediaha oo in badan aynu arkayno inan yar oo sabi ah oo caruura oo la kufsaday qaar markii la kufsaday la dilay qaarna la kufsaday oo dhowr nin weliba ay isugu tageen kadib kufsigiina uu ka yimi iyagoo sabiya inay ureystaan waxa ugu dambeeyay oo aynu haynaa waa Cawayr oo lagu kufsaday xeradii ay joogtay iyadoo ka dhalatay family ama reer danyar ah dadkii xerada maamulayay ee hayayna adarkiisa gabadhii xerada haysay sidii ay u hadlaysay ee ay isu difaacaysay adarkiisay inaanay iyadu mas'uuliyadba aanay ku lahayn wixii inta ku dhacay iyadoo ka mas'uula xerada loo dhibay gacanta ku haysay iyada xaq waxba kaga hadli maayo maanta balse laakiin waxa muhiim ah oo aan doonayaa inaan ka hadlo in dhibaatadu aanay ahayn xerada yar ee inantani haysato dhibaatadu inaanay inanta ahayn dhibaatadu inaanay ahayn nimankan maalin kasta wax kufsanaya dhibaatadu inay ka soo jeedo dhaqanka Soomaalida dhaqanka Soomaalida khariman haddaan la bedelinna kufsigu saa u soconayo weligiina wuu socday ilaa maantana wuu socdaa saddexdan hablood ee aynu aragnayna waxay ka turjumayaan boqolaal caruur oo inama iyo hablaba leh oo la kufsado haddii aad tagto dhakhaatiirta waaweyn ee magaalooyinka Soomaalidu ay degto ay ka mid tahay dad Jabuuti tagto haddaad tagto Boorama Hargeysa Burco Berbera Laascaanood Boosaaso iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Jigjiga iyo meel kastoo Soomaali degta haddii aad tagto waxa xaqiiqo ah inaad dhakhaatiirtooda ka soo helayso caruur yar oo inama iyo hablaba leh oo ciidda ka fara badan oo maalin walba la kufsanayo balse laakiin su'aasha aynu isweydiinayna waxay tahay maxaa sababay kufsigani inuu sidoo u socdo sidoo u farabato waad argagaxaysaa haddaad tagto dhakhaatiirtaas liiska lagu hayo ee inta tirooyinka lagu hayo caruurta ay la kufsaday hablayeena ma bare waliba waa sabi caruur yar oo 10 jiro wax ka hooseeya wax ka waaweyna caruurta yar kufsigu wuxuu ka soo gaaraa guryaha ay ku nool yihiin qaraabadooda laftooda iyo waalidiintooda qaar ka mid ah iyo qaar yar dhalinyaro ay sigaan ba kufsada hablaha iyo namada yar waxay ka dhacdaa malcaamadaha niman malcaamada dhigaya oo kula culimaan diinta barinaba kufsiga sameeya waxa ka mid ah iskuulada ay dhigtaan waxa ka mid ah suuqa caadiga iyo bulshada ay la nool yihiin balse laakiin dhibaatadu waxa ay ka imanaysaa waa dhaqanka Soomaalida say uga imanaysaa kow dhibaatada waxa ugu horeeya abuuraya waxa weeye dhaqankeenan khariban ee ku oranaya waa ceeba astur dhaqankii ceeba astur baa lagu leeyahay maxaa ceeba ma ilmo yaroo la kufsaday oo lagu tacadiyo noloshiisii la baabiyay ayaa la asturayaa Soomaalidu khaladka ay sameynaysaa wax weeye laba mid baa la isku khaldaya waxay sameynayaan diintii bay intay soo qaadaan bay si khaldan u isticmaalayaan waliba rag haddaan ragga nahay diintii baanu si khaldan u isticmaalaynaayoo la joojiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan baa diintii ilaahay laga dhigtay subxaanahu wa tacaala waxaa looga dhiganayaana marka ay ragga u hiirinayso ee ay dantooda furinaysana diinta way isticmaalayaan markaanay dantooda furinayna dhaqan baa loo leexanaya bal haddoo fiirso dhaqan bay u leexanayaan oo diinta way ka leexanayaan marka shareecadii qabato sideebaa diinta loo isticmaalaya diintu waxayna bartay inoo sheegaysaa in ceebaha la asturo waa sax ceebaha in la asturo laakiin ceebta la asturaya waa teen waxa la isku khalday oo Soomaalida madaxa ay isu gelisay markii lagu yiri sidoo Ilaahay ceebtaada u asturo ummadda kalena ceebahooda astur baa lagu yiri laakiin laguma oranin ummadda kale crime-kooda iyo dambiga iyo jariimada ay sameeyaan de astur laguma oran ceebta astur baa lagu yiri marka waxaynu kala saaraynaa dambiga iyo ceebaha aynu kala saaraynaa maxay u kala duwan yihiin soo qaado ceebta ay ku leedahay diintu astur waakii waxaad aragtay adoo suuqa maraya nin weyn ama nin dhalinyaro ah oo sharaf lahaa aad taqaanad u hanweynay oo habeenkii dambe aad aragtay isagoo suuqa dhaqdhacayo khamri cabsan waad aragtay waad naxdo waad yaabtay ceebta lagu leeyahay astur waxa weeye ninkaasi hadduu khamriga cabay isaga ilaahay dambi ka galay cidna waxba muu geysanin dambi kale muu samayn isaga iyo ilaahiisa ayay u dhaxaysaa now dambiga ninkaasi uu sameeyay haddii ay ka jirto shareecadii islaamka iyo dawladda islaamka hadday shaqeynayso dawladdaasi u taallaa la xisaabtamaysa balse laakiin qofkaas soo kale inta suuqa inaad la wareegtaa tiraahdo hebel baa wax cabsanaa taasoo kale lama ogola oo diintu waa ta ay ku leedahay ceebta astur haddii adigu aad u tagto tala waad ku leedahay intaasumaad ku leedahay waxa kale aad aragtay ka soo qaad tusaale ahaan inaan isku dambaabay oo wax khaldan sameynaya wixii khaldanaa markaad aragto tala waad ku leedahay inaad tiraahdo ilaahay ka baqo waxaan iska daaya balse laakiin aad suuqa la wareegto oo aad meelaha kaga sheekayso wax badan oo micnaana soo kordhin mayso dadkiina ceebtoodii baa dabadda soo dhigtay tan lagu leeyahay astur waa taa balse laakiin maxaan la asturaynin crime-ku markuu dhaco ee dambi la sameeyo ee kufsi ina yar la kufsado ceeb maaha taasi waa crime waa dambi qof baa dambi galay dambiga qofka waa in laga jaraa ma aha inaad tidhaahdo ow crime-kii ilmaha yar la kufsadayna waa ceebuhu ka mid yahay ma aha waa crime ceeb maaha waa crime waa dambi
dambigii baa lagu leeyahay astur sababta loo asturayaana waa maxay ummadda Soomaaliyeed baa dhaqankeedu wuxuu noqday in qofka lagu tacadiyo ee dhibaato loo geysto ee dhibaatada loo geysto in isaga la sii ciqaabo way dhaqanka Soomaalidu waliba khaasatan kufsiga ka soo qaato tusaale ahaan ina yar haddii maanta la kufsado oo reerkii inankaa yar dhalay soo istaagan ay yidhahdaan inanka yaga yaraa waa la kufsado waxay ka baqayaan ilmaha yar markay yidhahdaan waana laga kufsado ninkii la eedeeyo dee qabiilkii baa usoo istaagaya ninkii waxay leeyihiin ilmaha la kufsaday muxuu yahay ilmi yaraa waa in la keenaa ilmi yaraa baa la eegaya la caddaynaya in la kufsaday ilmaha yare inankaa markaa la kufsado bulshada oo dhami ilmaha yare la kufsaday halkii loo istaagi lahaa la difaaci lahaa la babla istaagi lahaa ayaa la caayaya ilmaha yar cuqdad buu ku koraya mar walba waxa leeyahay waa kii la kufsaday deena bulshadeena lagu yiri waa la kufsadayna waad garanaysaa qiimo la'aanta iyo sharaf la'aanta uu ku dhex joogayo bulshada halkii isaga loo hirin lahaa la tusi lahaa war adigu waxba ma samaynin ee adigu ilmo yar oo sabiya baad ahay nin baa kugu xadgudbay oo kufsaday pedophile oo sick ah oo buka oo u baahan bulshada in laga qabto ayaa isaga la ciqaabaya ilmihii yara waa dhaqan Soomaaliyeed qof kastoo Soomaaliya taa uu garanaya bal hadda u fiirso diintu way difaacdaa ilmaha yar dunida horumartay dunida reer galbeedka dooyaha u soo yaacaysan isku soo daadinaysa waa waxay horumarka ku gaadhay kaasa la difaacaya saxaabadii nabiga calayhi salaam iyo nabiga way difaaci jireen qofka waxa lagu sameeyo inanka iyo inanta lagu sameeyo waa la difaaci jiray nabigu wuxuu gaaray qoorta inuu ka jaro nin gabar kufsaday uu yiraahdo hala dilo si gabar dambe aan loogu xadgudbin inagu laakiin waa maxay inankii iska daa inanta marka la kufsadana waa la mid inan yar baa la kufsanayaa inanta yar dhalinyarada marka la kufsado Soomaalidu waxay ku odhanaysaa ceebteeda hal la asturo oo loo guuriyo ninkii wax kufsaday ninkii inanta ku xadgudbay halkii isaga la ciqaabi lahaa cidda markiiba horta u soo istaagaysa dawaa qabiilkiisii oo dulmi ugu soo barbar istaagaysa qabyaaladan iyo qabiilkan xun ee qariban weeyii waa la difaacayaa afar oday baa soo istaagaya way difaacayaan inankii waxay ku leeyihiin inta hana la siiyo inantii la dulmiya la kufsaday baa loo guurinaya kama dhacdo dunida horumartay kama dhacdo saxaabadii bal waa hagaaga Soomaaliyeed tiis ilaahay inoo soo dejiyay diinteenii saxaabadii iyo nabigii say sameyn jireen ma sameeyno adduunka horumaray dooyaha ay soo daadinaysan badaha ugu dhimanaysan inuu timaadaana taasay sameeyaan oo cadaaladdaas ka dhex jirta oo nin wax kufsaday ma badbaado hadda baro fiirso labadii inagu midna ma nihin labadii midna diinteena ma haysano adduunkii horumarayna lama socono dhaqanka Soomaalida markaa noocan ah ee oranaya inanta yar marka la kufsado haddii ninkii inta la ciqaabo la xiro inantaasi dabdabeysa guuri heli mayso sababta inantaasi aan guur dib ugu helayna waxa weeye nin kastoo la sheekaysta markuu la sheekaysto haddaanu maca isagu ogaanin marka reerkiisa iyo odayaashiisa iyo qabiiladiisa ogaadaan gabadha ay u doonayaan in la kufsaday dib baa looga noqonaya gabadh la caaya noqonaysa hadda waa inantii la dulmiyay dambiga lahayd waxba samaynin maxaa kale markaa kaasi waa maxay waa dhaqanka foodada ah ceebta astura iyo qofkii la dulmiyay inantii la dulmiyay oo marka horena inankii inantii bala ceebtooda astura markii dambena inantii la dulmiyay ee dulmiga lagu sameeyay loo guurinayo oo abaalgudba looga dhigay ninkii wax kufsaday kow laba qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye oday dhaqmeedka they have to go oday dhaqmeedka waqtigooda wuu dhamaaday oday dhaqmeedkani miyigii iyo nolosha ay ku noolaayeen waa laga soo baxay ma suurto galayso inuu oday dhaqmeed hadda ina hago oday dhaqmeedkaasi wuxuu sameeyaa mashruuc buu arrinkani u yahay marka inanta la kufsado waaba marka kaliya ee ay soo baxaan ay lacag doonayaan ay qaataan reerkii baa lala fadhiisanayaa xaal baa la odhanaya waanu rabnaa in lacagtii bay qaadanayaan inantii la kufsaday shilin ka gaari maayo waxaa qaadanaya adeeradeed iyo tolkeed iyo odayaashoodii baa lacagtii qaadanaya oo bartaa la maraya markaas la odhanaya inan weligeed waa la kufsan jiray maxaa ka macno ah okay haddaan waxba ka macno ahayn dee kufsigii markaas suu joogsanaya haddii lacag inta lagu kala qaato inantii la odhanayo ninkiiba ha loo guuriyo dee kufsigu markaa waynu socdaa marka waxaanaynu arkaynaa waa 2 iyo 3 imika dhacan meelaha aynu ka aragnay waa wax maalin walba dhaca waa wax maalin walba jira inta guryaha lagu kufsanayo inta macaamadaha lagu kufsanayo inta iskuulada lagu kufsanayo inta suuqa lagu kufsanayo inan yar oo inta loo diray dukaanka ka soo iibinaysa inan yar inta la kufsaday afkooda haysta ee aan hadli karin ee aamusani wallahi billahi tallahi ciida ka fara badan maxaynu Soomaaliya beenta isugu sheegaynaa maxaynu isaga dhigaynaa dadka awliyada ah ee malaa'igta ah ee iyagu aan dambi sameynaa kule oo Soomaali waxaan kama dhex dhacdo waa dhakhaatiirta taga YouTube waxaad ka daawataa barnaamijyada kufsiga baldaawo gobol waliba dhalinyartii ka shaqeynaysa hospitaaladu way ka sheekeynayaan inta inan ee yar ee waliba sabiya caruura ee la kufsaday pedophile midoo sigaba inagu jira oo gudaheena maraya oo suuqyada dhex lugeynaya lamana xidho lamana ciqaabo waxa u sameynayaan wax kale ma aha odayaal xun oo oday dhaqmeed oo khariban oo diinna shaqo ku lahayn aqoonna shaqo ku lahayn dadnimo iyo shaqo ku lahayn garashana shaqo ku lahayn naxariis iyo dadnimana aanay ku soo jirin because wixii lagu soo koriyay miyigii aad ogeedeen
dhagaysta ilaahay baa idinku dhashay hadraagu dhagaysta oo ka sheekanaysa miyiga la isku soo koriyo miyiga marka la isku soo korinayo ilmaha yar waxa laga xayuubiyaa laga qaadaa dadnimada iyo naxariista yar inaan hawd la yidhaahdo ibraahim hawd ayaa wuxuu qoray maqaal buuggiigan kusoo daray maqaal la yidhaahdo soomaalidu ka hadlaya iyo ubadka wuxuu yidhi cadaabtii caruurta mise cadaabtii ubadka ayuu bixiyey waa runtii habka loogu koriyo haddaad aragtaan ilmaha yar weliba ragga waxaa laga xayuubinayaa dadnimadii waxaa laga xayuubinaya astaqfir naxariistii iyo dadnimadii iyo garashadii iyo calooljileecii iyo waxiiba waa laga xayuubinaya wuxuu ka daraanayaa xayawaanka laga hoos baray bahal buu noqonayaa aan nixin oon jixin oo cidda u naxariisan ayaa laga dhigaya ilmaha yar waxa kaloo laga dhigaya la barayaa nin aan inaadeerkii ahayn oo la dhashay inaan u helin cadow yaqaan maxaan kusoo gabagabaynayaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa milil korkii lama dhayo haddaynu maanta dhan ku urwareegno qofkan ha la xidho qofkan maxkamadda ha la geeyo qofkan dembiga ha laga jaro dee kan maanta xidho haddaad doonto waxaad doonto ku samee balse laakiin wuu soconayaa inta dhaqanka noocan ee soomaalida uu jiro wuu soconaysaa sheekadani haddii gurigaaga maanta aanay ku dhicin oonay walaashaa iyo inantaada yar iyo inadeertaa haddaanay ku dhicinna wallaahi bilaahi tallahi nin walba way usoo socota nin walba way usoo socota haddii laga yaabaa inaanad ogeyn oo ilmahaaga yar inantaada yar ama walaasha gurigaaga joogtay habeen walba markay sariirteeda ama furaashkaaga saacato ay ooyeyso iyadoo la kufsado afka aan ka hadli karaynin waayo hadday kuu sheegato maca kala dhashayo ay ku tirahdo waa lay kufsaday iyadaa dib loo ciqaabaya iyadaa dib loo maagaya la odhan maayo waa inantani fictan bay ahayd oo iyadoo waxba may samaynine ninkii kufsaday may no waaba dhaqanka fawdada ah ee khariban haddaynu runta isu sheegayno waxaa keliya ee aynu wax ku daweyn karnaa dhaqanka soomaalida ha laga guuro dhaqanka soomaalida meelaha noocaas ila dhaqan dhan lagama wada guuri karo dhaqanka dhami fawdo ma wada noqon kara meelaha ugu khariban oo dhaqanku leeyahay buu kufsigaasi ka mid yahay iyo carruurteena yaradina baabaaday marka anigu waxaan leeyahay waxba tari mayso in la yidhaahdo kana maanta ha la xidho kaa kalena maanta ha la xidho lala xidhi maayo waa xaqiiq cawaya soo imika sheekada duma taagna believe me iminkaa nimankii wax kufsaday nin walba qabiilkiisa iyo odayaashiisa soo baxaya way barbar istaagayaan markaasaa la odhanaya ha loo guuriyo labada reer mar haddii heshiisyaana dowladdu faraha kala baxaysa waxa leeyahay reer way heshiiyeen weligeedna way dhici jirto de waa arrin dhaqan oo weligeedba soo dhacayay marka anigu waxaan taaganahay dhaqanka soomaalida haddaan la bedelin ilaawa nin walbana gurigiisa ugu imanaysaa nin walba diyaar garow wallahi gurigaaga laga ooyaya maalin dhow